بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan akhriyay warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. warqadaas oo ahayd jawaab celin ku socota ururka midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. baytal qasiidkeedu wuxuu ahaa in murabbadeedkii badda laga wada hadlo. gebagabada warqaddu waxay ahayd maxkamad bay ku jirtaa, cid aanu kala hadlaynaa ma jirto. hambalyaan leeyahay, aad baan u hambalyaynayaa. maxaa yeelay dawladdii ka horraysay ayaa kiiska murabbadeedka geysay maxkamadda. wakhtigaana madaxweyne Kibaki baa ahaa madaxweynaha dalka Kenya, Soomaaliyana waxaa ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. arrinkaas maxkamaddaasuu jira. farmaajo sooma celin karo, qof kale sooma celin karo. hambalyaan leeyahay, hambalyo. midowga Afrikana waxay ahayd intaan kiisku maxkamadda gelin ayay ku qurux badnayd inay tiraahdo waan idin dhex gelaynaa, laakiin kiiskii maxkamad buu tegey. qodobkaa intaasaa ku dhaafaya. kismaayo liin aad u dhanaan baa Axmed Madoobe ku tuujiyey, isaga iyo la taliyayaashiisii, hadday ahaayeen foreign iyo hadday interiorba ahaayeen labadaba. taariikhda dib u xusuusta azaniya waxaa ku dhegay oo yidhi madaxweynaanahay Gandhi. wuxuu ku dambeeyey raaskaamboniyo isugu tegtay. wuxuu ku dambeeyey reconciliation. axmed madoobaa ku soo baxay. nafsa dariiq weeye, dariiqu waa dariiqii. axmed wuxuu garan waayey wixii shariif xasan gartay, wixii axmed ducaale geella gartay buu garan waayey. sideedabana daaroodku waa baawar hangari weeyaan. way ka baawar jecel yihiin ummadda Soomaaliyeed oo kale. meel kasta waa la gelayaa, bad buu la gelayaa, cir buu la gelayaa, dhulkuu la gelayaa. sayid maxamed cabdalla xasan yaa khiyaameeyey. yacni inta xarakaad dalkaa ka dhalatay oo ay sabab u ahaayeen burburkeeda daaroodku tira ma lahayn, weliba isbeeshalay kablan lahaa. qodobkaale intaasaa ku dhaafay. ninkii tiisaba daryeelaa tu kale ku dara. taageerada Siciid Cabdilaahi Deni isagii bay sidataa. isagii baad waxaad mooddaa inaanu ajando siyaasadeed aanu Puntland la iman. isagii baad mooddaa inaanu kursigaba malaysanayn inuu ku soo bixi doono. dawladda federaalka wadatashi baannu ka la'nahay. maamul goboleedkiisii ninkii ka hooseeyey ee isku mid ay doorashada ahaayeen oo weliba Axmed Karaash cod badnaa ayaan wada tashan. federal systemku waa been. waa nin lacag raadinayo, lacag ku dhaqanaya. qodobkaana intaas ayaa ku dhaafaya. waxaan dib ugu noqonayaa murashaxiinta ku guulaystay anigu goobjoog ma ahayn,
allaan ka baqayaa run baan sheegayaa laakiin ilaa hadda 3 madaxweyne inay ay ka curteen Kismaayo dee waa marag madoonta seeraar iyo xidig waxaan leeyahay ha kala fogaanina intaas ayaan kula talinaya ha kala fogaanina tashada isu taga meel wax wada dhigta الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.